بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دawada ku soo dhaw barnaamijkeena qisooyinka nolosha qisadan waxay ku saabsan tahay nin dhalinyar ah oo la oran jiray Camaar Cumar oo runtii hal mar noqday milyaneer waa qisaska aadka u la yaabka badan leh ee marka laga sheekeynayo ganacsiga iyo horumarkiisa runtii la soo qaato ninkan dhalinyarta magaciisa waxa la yiraahdaa Camaar Cumar waxa uu ku dhashay Sacuudiga ku dhashay laakiin asalkiisu waa Suudaani muddo ilaa 7 sano waxa ku noolaa isagoo yar Suudaan kadibna waxa la geeyay dalka Imaaraadka Carabta halkaas uu aabihii ka shaqayn jiray Camaar Cumar waxbarashada runtii markuu dhiganayay dugsiga hoose dhexe ilaa secondary schoolka wuxuu ahaa nin aan waxbarashada aad ugu fiicnayn runtii ma ahayn dadkan aadka ugu wanaagsan ee aadka ugu fiican xagga waxbarashada bale uu ka doonaa walaalihii halkay waxbarashada aadka ugu fiicnaayeen isagu sidaa mu ahayn wuxuu iska ahaa inta badan ay u badan yihiin dhalinyarta qof iska caadiya oo waxbarashada aad serious uga ahayn laakiinse markuu gaadhay heerkii jaamacadeed waxba iska bedelay jaamacadii markaa uu galay ayaa waxa uu arkay dhalinyar fara badan oo taajiriina oo aabahood ay yihiin dad taajiriina oo runtii jaamacada dhiganaya oo baabuur qurqurux badan jaamacada la imanaya arintii su'aalo badan bay ku keentay su'aalaha badan waxa ka mid ahaa adiga laftigaagu maxaad u noqoyd qof lacag leh maxaad dhaqaale u sameyn weyday isla waqtigaasi uu markaa jaamacada bilaaway runtii aabihii ayaa shaqada laga fadhiisiyay oo shaqada ka fadhiistay xaalad adagoo dhaqaalana way ku soo beegantay waqtigaasi Camaar Cumar waa uu fakiray muxuu ku fakiray inuu ganacsi furo waxa uu sameeyay xaafadda uu runtii degan yahay waxa u dhow meel yar oo maktabad ah oo kutubta lagu iibiyo waxa uu ogaaday maktabadaasi ninkii lahaa inuu iibinayo oo uu ka dhoofayo dalka wuxuu go'aansaday maktabadda yar inuu ganacsigiisa uu ka bilaabo oo iyada uu iibsado lacag muu haysan lacagtu wuxuu ka soo amaahday dad ay qaraabo yihiin ayuu ka soo qaatay oo uu ka soo amaahday maktabadii yareed buu iibsaday maktabadii yareed markuu iibsaday 2 bilood markay marayso ayay fashilantay meesha ganacsigii yaraa muddo yar 2 bilood ku fashilmay oo noqday mid aan soconayn waxay noqotay Camaar Cumar inuu ganacsiga halka ku laalaabo laakiinse waxay ku reebtay murugo iyo su'aalo badan bal deyn baa lagu yeeshay oo dadku deynta ka soo qaatay deyma ayaa ku yeesheen Camaar Cumar arintu waxay ku abuurtay inuu aad isu weydiiyo ganacsigaagu muxuu fashilmay maalimaha kamida ayaa nin baa waxa uu weydiiyay run ahaantii su'aal cajiiba su'aashaas maxay ahayd waxaad Camaaro inta aanad gelin ganacsiga maxaad diraasad ugu sameyn weyday maxaad research ugu sameyn weyday ganacsigaagan oo u baadhi weyday oo marka horeba arinta aad u sameyn weyday Camaar Cumar su'aashaasi waxay ku noqotay su'aal runtii ama kaaga sababtoo ismu weydiinin markiisii hore isla markiiba internet ku galay waxa uu arkay boqolaal articles intaas oo videos intaas oo wax oo laga duubay ganacsiga sida loo abuuro waxa uu ogaaday ganacsiga marka la abuurayo in talaabooyin la raaco waxa uu ogaaday intaas oo tababaro inay jiraan trainings ay jiraan runtii qofku qaadan karo intaanu ganacsiga abuurin waxa uu ogaaday steps la qaada inay jiraan marka ganacsiga la furayo waxa uu ogaaday questions critical inay jiraan oo qofka ay tahay inuu ka jawaabo intaanu ganacsiga abuurin arintaas waxa ku abuurtay Camaar Cumar inuu hor ka bilaabo inuu tababar qaato ku saabsan ganacsiga iyo sida loo abuuro tababaradii markuu bilaabo inuu galo ayuu tababar u soo dhiibaa kolba training buu galaa kolba tababar kale uu galaa oo ku saabsan ganacsiga sida loo abuuro sida loo suuq geeyo sida dhaqaale looga sameeyo su'aalo badan oo ganacsiga ku saabsan ayaa runtii wax badan uu ka ogaaday marketingkiisa suuqgeyntiisa sida fikradda loo sameeyo fikradda goorma shaqaynaysa qaabkeeba u shaqaynaysa qaabkeeba u iibgeynaysa su'aalo badan oo hore aanu isu weydiinin ayuu tababarka ku qaatay tababarkii muddo ma ku qaadanayay ee uu ku qancay macluumaad fiican inuu helay ayuu go'aansaday ganacsigii dib inuu furto maanta ganacsigii buu dib u furay ganacsi hor la oo cusub buu abuuray
ganacsigaas muxuu ahaa wuxuu abuuray inuu sameeyo websiteska iyo loogooyinka shacaaraadka inuu u sameeyo kambaniyada laakiinse fikradiisu maxay ku salaysan tahay waxa uu sameeyey dad aqoon badan u leh samaynta websiteska iyo loogooyinka ayuu heshiis la soo galay wuxuu yidhi anigu already waxaan isku dayay inaan sharikadaha ka soo qaado baahidooda inay looga iyo websites u baahan yihiin idinkana aan idinkan qolinkan aqoonta u leh websiteska idinkuna aad samaysaan aniguna aan idin dhexeeyo oo runtii dhexdiina markaa han hawsha ka qabto hawsha hol macquul ay noqotay waxay noqotay inuu Camaar hawshii ku dhaqaaqo kambaniyada ayuu tagaa wuxuu ka soo qaadaa cid alla cid u baahan inay website loo sameeyo ama logo loo sameeyo ama design loo sameeyo waxa uu geeyaa dad marka dawlado badan kala duwan jooga oo aqoontan leh ayuu u diraa kuwaas soo sameeya markay soo sameeyaan bay u soo diraan kambaniyadii buu geeyaa arrintu waxay noqotay arrin shaqaynaysa muddo markay shaqaynaysay ee uu arkay arrinta si fiican inuu shaqaynayso ayaa dhinaca kale wuxuu ogaaday shaqadiisa inaan sharci ahayn sababtoo leesanba kama haysto xukuumadda muxuu markaa u baahday kambani jira waa inuu la shaqeeya kambani jira ayuu markaa u tegey kambanigiiba wuxuu kula heshiiyey inuu shaqada noocaasa qabanayo laakiinse wixii ka soo baxa percentage inuu siinayo isaguna sida uu kaga hoos shaqeeyo kambaniga oo magaca kambaniga ku shaqeeyo arrintu way shaqaysay arrintu way sii weynaatay kambaniyo badan buu u tagay muxuu ahaa Camaar uu ku qanciyay servicekii adeegu wado adeegiiba balaadhay maxay keentay arrintii inuu qoladii intuu ka guuraba xafiis u gaara uu samaysto laakiin xafiiskan uu samaysan xafiis weyn ma aha waxa weyn waa xafiis sharikado badan ay ku guda jiraan ayaa isagana meel laga siiyey waana inta badan ganacsiyada caalamka sida in badan oo kamid loo sameeyo halka xafiis kaliga kareysan lahayd in dad aad kula shiraakoodo oo xafiiskii qayb kamid lagu siiyo tiibu sameeyay tiiba waxay keentay shirkadiisii inay korsi kacdo shirkado badan oo kale ay bartaan tiibu ka sii gudbayo haddana waxa uu sameeyay xafiis u gaar u furtay xafiiska u gaar ama ku furtay ayaa waxa batay shirkadihii iyo kambaniyadii soo dalbanaya adeegiisa soo dalbanaya arrin kale laakiin ku soo korodhayo kambani kasta waxa uu rabaa halkii website kaliya looga sameyn lahaa su'aalo badan oo kale weydiiyaan oo waxay yiraahdaan ma sameyn kartaa su'aal ahaan oo kale in wax ma duubi kartaa in suuqgeyn ma noo sameyn kartaa in allahumma salli ala maxamed in waxaan u baahanahay xafladu baan qabanana ma noo qaban qaamin kartaa arrintii maxay Camaar ku abuurtay kambaniyadan u imanayay serviceda fara badan ee kala duwan raba inuu u sameeyo dhammaantood oo service kasta ay rabaan sharikado kale oo gaar ah u sameeyo marka shirkadiisu kuwa tiknoolajiyada waxaan ku saabsaneed dadkii service kale ma rabaan serviceda kale rabaan halkii dad kale u tagi lahaayeen ama meel kale ay tagi lahaayeen in isagu qabto laakiinse kambani kale waxaan ka shaqeeyaa oo furo laakiinse maxay taas u baahan tahay intaanu kambaniga kale aanu furin fikradiisi waa inuu dib ugu noqdaa waa inuu baaritaan ku sameeyaa waa inuu aqoon badan u yeeshaa tababar waa inuu u qaataa macluumaad fiican waa inuu ka helaa taa marka uu sameeyo ayuu wuxuu samayn jiray Camaar kambani serviceka loo baahan yahay qabanaya ayuu sameeyaa markaasaa taasi waxa ku abuurtay intaas oo service oo kala duwan inuu qabto isagoo mid service kastana kambani u gaara u sameynaya waxa uu sameeyay kambani ku saabsan suuqgeynta waxa uu sameeyay kambani ku saabsan adeega runtii tiknoolajiyada iyo qofkay wax ka xumaadaan sida loogu hagaajinayo waxa uu sameeyay kambani ka shaqeynaya tababarada hawsha saas uu bilaabay Camaar hawsha waxa uu wadaba waxa uu gaaray inuu sameeyo 12 kambani oo kambani aad u waaweyn okay marka waxa uu sameeyay Camaar Cumar shirkad guud oo soo hayskalaan dhammaan shirkadihiisu shirkada guud waxa la yiraahdaa Royal Sky marka kambaniga guud waxa soo hoosgalaya intaasoo kambaniyo ayaa soo hoosgalaya waxa uu sameeyay